soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal mowduuca muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu wadaago predict-yada ama dabcan saadaasha maalmahan dabcan inta dambe u batay maadaama waqti hore ay ugu dambeysay inaan sameeyo saadaalin ciyaaraha ah oo inta badan gameska u badnaa dabcan hadeertan waxaa usoo jeestay in ciyaaraha in fara badan soo dhigo weliba si maalinle ah hadeertan isbuuca Champions League waxaa soo dhigay ciyaarta Arsenal Champions League game-ka ku xigay oo dhammaan ciyaaraha dhan ka wada qayb qaatay Premier League oo caawa ay ugu dambeysay sidoo kale waxaa dhigtay in Nottingham Forest ay ka badin karto Brentford, Aston Villa ay ka badin karto Newcastle, Chelsea ay ka badin karto Crystal Palace. saddexdooda la isku daro waxaa dhigtay 24,600 halka waxaa ka helay $117,338 taa oo dabcan ku gaaray targetkayga ahaa $600,000 dabcan muuqaal Korea $400,000 haystay waxaa sidaa ku helay $600,000 kaliya ciyaaraha caawa Premier League la ciyaaray sidoo kale tan kaliya maya tan waxaa dhiganay 24,000 sidoo kale Chelsea waxaa dhiganay $4,970 $12,052 ka helnay maadaama ay badisay waliba 2 over ay ku badisay soo marka waa ka gudbeynaa ciyaaraha hadeertan caawa la ciyaaraya marka muhiimada ugu weyn taas waay dabcan caawa waxa ciyaaraysa Al Nassr iyo Ronaldo soo marka Al Nassr kaligeed waxaa dhigtay lacag gaaraysa $200,000 inay badinayso dhowr marana kala dhigtay oo arki kartaa ilaa 37 mar dhigtay 37 mar oo $5,390 dhigtay total lacagta dhigtay $200,000 gaaraysa profitka ay helayaan 44,000 gaaraya 37 marka lagu dhufto 1,200 maadaama lacagta dhigtay ay tahay 5,000 waxa waaye 5,390 lacagta ay helayaan ama potential dabcan ka lacagta ku guuleysanayaan waxa waaye 6,575.8 hadii Al Nassr ay badiso waay soo marka 37 marka lagu dhufto 1,200 oo lacagta profitka ay helayaan hadii Al Nassr ay guuleysato waxa soo bixayso lacag gaaraysa 44,000 waana sababta $200,000 u dhigtay $44,000 just one game Al Nassr xitaa game adag inuu ku noqdo laga yaabo oo kooxda ka hooseysa u bixisa laakiin 100% ay badin kartaa sababtaas aan u dhigtay hadeertan balance-iga 400,000 waay dabcan hadii Telegram channel-kayga aad booqatid oo Ibro City 25 ay ku qoran tahay offer waaweyn waxaa ka arki kartaa ciyaarihi xalay toole Premier League qaabka inta ciyaarta socotay dabcan u soo dhigay iyo dabcan balance-iga ugu dambeeyay oo $600,000 ahaa marka waxaan rajeynayaa in dhammaan muxuu ahaaytaa prediction-yada soo dhigi doono 100% ay noqon doonaan kuwa dabcan 100% oo dabcan maadaama marka qofka predict uu soo dhigayo wax dabcan lagu kalsoonaa karo inaa soo dhigo sidoo kale marka predict soo dhigayo micnaheedu maaha in aan kugu dhiirigelinayo in aad shaxda qaadato oo aad dhigato oo in 100% ay guuleysanaysa dabcan waxaan predict professional predictors ay jiro dad saadash ku fiican ay jiro kaliya wax lagu ma qiimeeyo taageer ahaan kaliya qofka markuu predict ama dabcan markuu saadaal sameynayo muhiimada waxay tahay in kaliya isaga lacagta ay muhiim u tahay teamkana muhiim u yahay ciyaaryahanadana muhiim u yahay qaabka halka lacag looga sameyn karo kooxda potential winning iyo dabcan dhan walba qofka markuu ka eegayo isaga wax muhiimadiisa ay ku jirto dabcan oo fiirinayo muhiim waana sababta dabcan professional predictors ay u jiraan hada qof Soomaali oo predictor ma jiro ama qof Soomaali oo saadaalin saxan bixiyo hadana guuleystaan ma jiro oo qof walba wuxuu iska tuurtaa wixina mararka qaar way suura galaan mararka qaarna ma suura galaan 99 iska dhaafay 80 xataa qof ay ma jiro marka adduunka lagu kala sareeyaa hadii application-ada caadiga gashid sida oo ciyaaraha soo deeyo live score iyo all football oo kale iyo dad caadi oo professional arkaysa oo laga gadanayo oo kaliya soo dhigay saadaashaas kooxdaas oo saadaashoodana 100% xitaa rateska heestaan ka arki kartaa 8 qaar heestaan 9.5 qaar haysto rate-ku ugu sareeyana waa 10 qaar 10 heesta xitaa soo marka predicting wax la barto waayo oo saadaasha wax kaliya ma qof walba uu iska sameyn karo marka ani marka soo dhigayga ma in waxaan 100% kuwa ku guuleysanaysa qaada ku dhahay waxa aad ku qanacsaneen dabcan inaad tahay batatan baqalad waay fikirkaadi aragtida ku darso koox walba soo dhigo wixii kulwa macquulsan ka qaado waxaan rajaynayaa in muuqaalka wax badan ka fahamtay sidoo kale aad ka faa'iideysan doonto game-ka ciyaartan waxay noqon doontaa dabcan ciyaar aad u xiiso badan waan ciyaartii ugu horeysay lacag $200,000 dhigto Al Nassr inkastoo dhowr mar oo kala duwan dhigtay ilaa 37 mar dabcan sida kaaga muuqata 37 mar waaye waana la accept gareeyay soo marka habeen dambe ciyaartan aan u balana dabcan ciyaari Champions-ka kuwana halkan ka arki kartaa kuwana hadda waa Premier League waxa ka horeeyay Champions-ka
Real Madrid oo kale iyo Villarreal halfkan bidikooda waxaa dhigtay in Villarreal double chance ay heli karto adiga 9,900 aa dhigtay 138,000 hele almost 40,000 oo door lacag gaaraysa halkaas ka hele inkastoo gamekaas isla gamekaas hadana ku khasaaray 47,000 door kaliya profit ahaa maadaama ciyaarta dhameystirna Villarreal aa double chance laakiin halfkan bidikood kaliya ka hele sidoo kale Chelsea iyo Bournemouth aa badinaysa dhahay haweenkii waxa way Premier League iyo Real marka ka dhamaano haddana aad tagno championka still Liverpool waxa ku jirnaa Bournemouth maadaama lacag fara badan ay dhigtay Bournemouth ka tagno kan labadan xabana dabcan lost yaa qaatay intaan lacag yar waaye lostiga aad u badan yahay waana habeenkii dabcan maxuu ahaaytaa Premier League oo ciyaartan si degdeg ah ku soo dhigay Telegramka wax falcelina ma ka sameeyeen anoo magaalka jooga soo dhigay Man City waxa dhahay laba gool wax ka badan dhalinaysa way dhalisay Tottenham iyo Burnley labada kooxood midkood badinaya dhahay Tottenham ana 90 gool ka bareejeysay Sunderland iyo West Ham dabcan waxa dhahay labada kooxood midkood badinaya way badisay Liverpool dabcan waxa dhahay double chance oo dabcan waa isku ogaa Liverpool in game-ka uu ku adkaa doono ka gudubno game kale ugu muhiimsan game-kan kamid ah game-kan oo kale 115,000 dhigtay 335,000 qaatay wuxuuna ahaa game-kan dabcan Europa League Braga iyo Nottingham Forest dabcan labada kooxood midkood badin karo Dinamo Zagreb oo double chance ah Roma oo double chance ah Rangers oo iyadan double chance ah soo marka muuqaaladan dhan hore u sameeyay mar ina ku laabto waxa rajeenayna muuqaalka wax badan ka fahantii sidoo kale ka faa'iideysan doonto marka hadii tahay waxa rabaa inta bishan ka dhiman oo kaliya ina gaarsiyo lacagta hadirta akoonka ku jirto 400,000 dollar waa ilaa 200 dabcan aan la sarno taalo ina lacag 1 milyan oo dollar gaarsiyo rabaa waxaan rajeenayaa ina gaarsiyo hadii 1 milyan ka gaarsiyo dabcan live event aad u weyn oo dad badan dabcan ay ka faa'iidi doonaan sameyn doonaa marka rajeenayna muuqaalka wax badan ka faa'iideysan kale ka faa'iideysan doonto marka hadii dawashada ku reejaan ka xishmada ka waxsanayna jalka subscribe sharta muuqaalkan like sharta saxiibada la wadaagto waana ku mahadsantahay dawashada muuqaalkan